ciidanka booliiska Soomaaliya maanta waa ay 75 jirsadeen waxaana munaasabada ugu dabaaldegayeen curashadoodii 20 Diseembar 1943 ay ku soo bandhigeen garoonka kubadda cagta Banaadir halkaas oo awoodooda ciidan iyo waajibaadka ay dalkooda u hayaan ay tusiyeen dadweynaha ka soo qayb galay مسؤوليين كسعتي دولة الصومالية وهجامينية مدحونها دلكا مدن محمد عبد الله فرماجو دنجرياش الدولة ذها عالم كصومالية أمتنا سراكيش عيدا ماذا كلا دوان قيبها كلا دوان بالشدة كون الجبل كبنادل أي جوبتا أي عيدا ماذا كسو بندقيين دبلدقو ذا مالين تنفذيي inta uu socday fantasiyaha ciidanka booliisku ay soo bandhigayeen ayaa si weyn waxa uga dhex muuqday waajibaadka shaqo ay kala leeyihiin hogaamada kala duwan ee ciidanka booliiska oo maanta ay ka qayb galeen u bixi ay ka geeriyoodeen ciidamadii ka tirsanaa booliiska oo lagu xanaaneeyo dugsiga barbaarinta ciidanka booliiska lana siiyo xanaane heer qaran ah قاعد كعيار سوى الأسود شيء dadweynihii iyo mas'uuliyiintii munaasabada goobjoog u ahaa ay ciidamadu goobtan ku soo bandhigeen haday ahaan lahaayeen kooxaha banda muusigada kuwa isboortiga ururada qaybaha kala duwan ee ciidanka booliiska dalka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyo ku aadan curashada ciidanka booliiska u diray waxaana madaxweynuhu intaas uu ku daray in dawladda uu hogaamiyo ay dhismaha ciidanka booliiska iyo guud ahaanba ciidanka qalabka sii doonto ahmiyadda ugu sareysa isagoo kula dardaarmay saraakiisha iyo ciidanka booliiskaba kasbashada shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka booliisku u maraan kor u qaadista cadaaladda waxaa leeyahay hambalyo guud ahaan saraakiisha saraakiil xigeenada gabdhahooda iyo qoysaskooda meel kasta oo Soomaaliya ciidamada booliiska Soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada qalabka sida waxaan doonaynaa inaan ciidanka booliiska qalabayno oo aan u dhamaystirno agabka iyo wax alla wax u baahan yihiin sida maanta ku aragteen bandhigii halkan ay booliisku soo dhigeen intaasna waa tusaale kooban weyn waxaa intaas dheer inaan xaqiijino xuquuqdooda inaan xaqiijino oo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida aan xuquuqdooda aan xaqiijino oo aan u dhamaystirno hadday tahay mushaaraad hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay daryeel kale insha allah haddii la yidhaahdo kii naga geeriyooda kii naga baxa carruurtiisa annagaa ka mas-uula sida carruurteen halkan joogtoo kale oo maanta noo sameynayay wacdaraha iyo mahrajaanka noo sameynayay shacabka Soomaaliyeed waxaa ku helanaysa taageeradooda iyo kalsoonidooda inay cadaaladda samaysaan maxaa yeelay cadaaladdu waxay ka bilaabanaysaa isteeshinka booliiska way ka bilaabanaysaa markii hooyo ama ilmo ooyaya igu yimaadaan ama qof dhibaataysan waxay rabaan dadkaas cadaaladooda inay siisaan oo oobiya ninka fadhiya inuu wax saxa ka qoro wax rasmi ah ka qoro qofka daalinka ah oo dhibka wana la soo qabto cadaaladdu meeshaas ka bilaabanaysaa si ay diyo baaraysana inay si sax u baarto oo aysan maleegin evidensiga xaqiiqda aysan maleegin ay run ka sheegto oo u gudbiso marka xeer ilaaliyaha ilaa maxkamadda cadaaladdu waxay ka bilaabatay hoos idinkeeda ka bilaabatay shacabka Soomaaliyeed haddaad doonaysaan inay harataan niyaddooda iyo taageeradooda waxaa loo baahan yahay inay cadaalad ku dhaqmaan inay cadaalad ku samaysaan shacabka Soomaaliyeed ayuu weydiistay madaxweyne Farmaajo inay isgarab taagaan ciidanka qalabka sida si waajibaadkooda ay u oofiyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida booliiska iyo xoogga iyo nabad sugidda iyo taliska maxaa ku raahdaa ashiinta kulligood inay siiyaan oo ay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan maxaa yeelay maalin walba waa loo dhimanayaan
oo naftooda loo halligaya waxaa la doonayaa marka annagana inaan garab ku siino si hawshooda aan ugu fuudeyno 75 sano kadib ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay soo fadhigeen cudud ciidan oo ay ka muuqatay kobac iyo tababar heerkiisu aad u sareeyo taasoo marka laga hadlayo amniga gudaha dalka muwaadiniinta Soomaaliyeed u bidaaminaysa rajo ifafaala amni muuqdo oo la isku halayn karo Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka garoonka kubadda cagta ee Banaadir